tuhuna waxaa jira sida aad sheegtayna dad qaar oo siyaasiyiin ay baraha bulshada ku qoreen dadka qaar ay xogaha isla dhexmarayaan ay tahay in ama 2 milyan ha noqoto inkastoo 2 milyan la magac dhabay ama 3 ha noqoto ama ha ka badnaato ama ha ka yaraatee inay dhaqaale lacageed ku bixiyeen kooxda al-shabaab sidii cali jeeyta xilka looga qaadi lahaa al-shabaab iyo xagee soo maraan cali guudlaaw cali waadiida horta xilka qaadistii lagu sameeyay waxba kama jiro waxa kale cali uu sheegay in kooxda dawladda ka soo horjeeda iyo maamulka Hirshabelle la yiraahdo ay isku si ula dagaalamayaan iyagoo ayaa isaga iyo cid hogaaminaya barashada quraanku waa fursad iyo deeq la bixiyo inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun hadiiba jeclay inaad hesho macallin ubadkaaga diinta islaamka iyo quraanka kariimka kugu barbaariya waxaan ku hayaa dugsiga habka online ku shaqeeya ee Daarul Falaax Quraan Online Academy oo ah dugsiyada ugu faca ballaaran ee habka online ku bixiya cilmiga shariicada islaamka si wanaagsan u tarbiyadeeya ubadka qurbaha ku nool aqoonta kala duwan ee dugsiga lagu qaato waxa kamid ah barashada quraanka kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga iyo barashada asaasiyaadka cilmiga shariicada islaamka sida fiqiga tafsiirka aqeedada iyo waliba ducooyinka sanad dugsiyeedka dugsigan ayaa soo kordhiyay qayb ardayga lagu xifdisiinayo quraankiisa sidoo kale waalidku kaga nasanayo cidii xifdisiinaysay ardaygiisa darsigii yawmiyanka loo soo dhigay dugsigan ayaa haddaba ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca sanad dugsiyeedkan waxa uu qaadanayaa arday kala joogta qaaradaha Yurub Ameerika iyo waliba Aasiya haddaba waalid ubadkaaga keen oo hadda ka mid noqo bahweynta dugsiga Daarul Falaax Quraan Online adigoo ka wacaya taleefanada iyo WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda balanteenu waa jaaligaanu toornayn barano diinteena islaamka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر هذا برنامج كنا نبكي على الغيبتن waxaynu ku eegi doonaa xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeeyta Cusmaan iyo sidoo kale falcelinta gudoomiyahaasi oo markaasi isagu aad uga soo horjeestay isla markaasina gaashaanka u daruuray xilka qaadistiisa kuna dhawaaqay arrimo xasaasi ah oo markaasi ay dad badan hadal hayn dhaxdooda ka abuurtay arrintaas ayaan eegi doonaa waxyaabaha lagu eedeeyay gudoomiyaha xilka qaadistiisana keenay iyo sidoo kale waxyaabaha uu isagu sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaynu eegi doonaa kuma Cali Jeeyta Cusmaan wadul istaagi doonaa iyadana dhowr iyo 10 daqiiqo soo socda waxay la joogaa saaxiibkeen kacsi ma santadoona dhawaashan salaamayna inta inaan waxa kale oo dhan u galin Cali Jeeyta Cusmaan waa qof noocay ah nuru ma santahay Cali Jeeyta Cusmaan waa nin siyaasi ah xilal kala duwan buu soo qabtay baarlamaanka waa maarta xubin baarlamaan uu soo noqday wasiir buu soo noqday gudoomiye gobol uu soo noqday xilal kala duwan buu soo qabtay wuxuu soo noqonin oo kaliya madaxweyne way marka waa nin siyaasi ah waa nin codkar ah waa nin geesi ah waa nin hawsha uu damco dhaqaajin kara mudooyinkii ugu dambeeyay ayaa aad loo bartay waliba si gaar ah intii uu gudoomiyaha gobolka Hiiraan u ahaa yaa si aad loo bartay isagoo la xisaabtamaya hay'adaha deeq bixiyaasha isagoo la xisaabtamaya cid walba oo shisheeye ah oo Soomaaliya joogta oo markaas u joogta in dadka Soomaaliyeed ay gargaaraan marar badanna la arkay isagoo warbaahinta si adag uga hadlaya oo la hadlaya hay'adaha sidoo kale dagaalkii kooxda dawladda ka soo horjeeda ayaa aad loogu xasuustaa doorkii uu ku lahaa sidii uu hogaamiyay iyo sidii uu gobolka Hiiraan uu uga fogeeyay kooxdii dawladda ka soo horjeeda marka Cali Jeeyta waa nin aad iyo aad dhinaca hadaladiisa iyo maaragtay wax qabadkiisa iyo marka la fiiriyo qof nooca lagu xasuusan kara ama lagu tilmaami kara Cali waa nin wax qabadkiisa marka la fiiriyo gobolka Hiiraan si aad iyo aad ah inta loo ogahay uga soo dhalaalay oo shaqadiisa si habsami leh inta la arkay ee guud hadaladiisa marka la fiiriyo iyo sida quluubta dadka Soomaaliyeed u hantay ee maartay ay u soo jeetay hadaladiisa iyo khudbadaha uu jeedinayo iyo sida ay uga go'nayd in uu wax qabto waliba uu ka tago maartay taariikh ummadiisa iyo bulshadiisa reer Hiiraan iyo reer Hirshabelle uu si hagar la'aan ugu adeego marka dhinaca dagaalka hadda shabaab dagaalka door muhiim ah ayuu ku lahaa waxa uu waliba hogaamiyihii dagaalkan hogaaminayay Macuusleyda waliba Macuusleydi iyo ciidankii kaleete Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan mideeyay hormuudkana uu ahaa
mar walbana hor socday ciidanka dagaalka ku jiray warbaahintuna marar badan ay wareysiyo kala duwan ka qaaday goob kasta oo kooxdan laga saarana istaagayay isagoo ciidankiisii wata marnabana fikirkiisa iyo sida uu uga soo horjeedo kooxdan aan la gabanaynin buu ahaa marar badan mas'uuliyiin kala duwan oo ama heer federaal ama heer dawlad goboleed Hirshabelle ay isku gafeen oo ay isku qabteen qaabku wuxuu waday marka ninkan nin culus way ninkan sida adigu waad ka dhawaajisay dad badan ay og yihiin wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan wuxuu ahaa nin aad uga soo dhalaalay waliba aad loogu bartay hadda dagaaladii ugu dambeeyay oo shabaabka lala galay nin aan bareerihiisa qarsanin buu ahaa waxa lagu tilmaamayay inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee dagaalkan shabaab hadda lagu qaaday inta dawladda cusub ay timid iconkii dagaalkana waa lagu tilmaamayay inuu ahaa in xilligan oo dagaalkii shabaab bartanka lagaga jiro oo xaaladda Soomaaliya ay warwaarag tahay oo shabaab aan laga wada xoreynin gobolladii Cali Jeete laftiisu uu maaragtay ka soo jeeday in madaxweynaha Hirshabelle uu go'aanka noocan ah qaato oo xilka qaadis ku sameeyay maxay ku timid maxaa la daliishaday nurow marka la fiiriyo warqadda hadda ka soo baxday madaxweynaha Hirshabelle ee uu xilka uga qaaday dhowr sababood baa leeyahay waxa ay gundhigu yihiin in xilka laga qaado gudoomiye Cali Jeete Cusmaan sababahaas waxa la leeyahay waxa jiray khilaaf Cali Jeete iyo u dhaxeeyay madaxda sare ee maamulka Hirshabelle oo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu ay ka yihiin sidoo kale waxa la leeyahay oo lagu eedeeyay inuu diiday in la mideeyo canshuurtii Hirshabelle maamulkaasi iyo in uu qaaday talaabooyin isaga u gaar ah oo waxyaabaha la leeyahay waa lagu eedeeyay oo madaxdu ay dabcan oo madaxdu aysan la ogeyn oo kaliya uu qaaday waxyaabaha hadda lagu eedeeyay loo cuskaday in xilka laga qaado waxyaabahaas ka mid ah nuuro waxaana xilkiisa lagu bedelay in la yiraahdo Cabdullaahi Axmed Sufrow oo marar hore markii ugu horeysay aan ahayn marar hore soo noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan marka arrimahaas waa arrimaha la daliishanayo waxa kale nuuro aan qarsoonayn oo cad in mudooyinkii la soo dhaafay dhowrkii isbuuc la soo dhaafay Cali Jeete Cusmaan uu wareysiyo kala duwan idaacada caalamiga uu siiyay sida VOA kale oo uusan qarsanin in dagaalkii lagu jira kooxda dawladda ka soo horjeeda la hagardaameynayo oo uusan sii soconin isla markaana lagu wada qaab aysan ku qanacsanin sidoo kale xagga dawladda federaalka laftirkeeda ayaa la leeyahay maysan la dhacsanayn qaabka uu wuxuu wado gudoomiyaha Cali Jeete Cusmaan oo marar kala duwan xitaa wareysi aan dhageystay oo VOA uu siiyay dawladda federaalka xitaa wuxuu ku eedeeyay in dagaalkii socday ee kooxda dawladda ka soo jeeda maartay lagu jiray in xagga dawladda federaalka dhinaceeda uu ka socon waayay marka waxa muuqata Cali Jeete inuu culays kala kulmay maamulka Hirshabelle iyo dawladda federaalka labadaba waxa kale oo iyadana jirta in uu culays aad u weyn kala kulmay kooxda la dagaalamay dalabskeeda oo marar badan kharashaad ku bixisay in ay khaarajiyaan ama ay dilaan sidoo kale waxa la leeyahay oo xildhibaano Soomaaliyeed ay sheegeen oo barahooda Facebook qaarkood ay ku qoreen in Cali Jeete Cusmaan lacag 2 milyan ay kooxda dawladda ka soo jeeda ay ku bixisay sidii xilka looga qaadi lahaa way taa lafteeda aanu nimaadno tuhuna waxaa jira sida adigu sheegtayna dad qaar oo siyaasiyiin ay baraha bulshada ku qoreen dadka qaar ay xogaha isla dhexmarayaan ay tahay in ama 2 milyan ha noqoto inkastoo 2 milyan la magac dhabay ama 3 ha noqoto ama ha ka badnaato ama ha ka yaraatee inay dhaqaale lacageed ku bixiyeen kooxda al-shabaab sidii Cali Jeete xilka looga qaadi lahaa al-shabaab iyo xageeysa soo maraan Cali Guudlaaw de hortaas nuurow ma inagu ma xaqiijin karno sida la leeyahay markaan fiirino Cali Jeete ma ahan qofka waxa weeye lacagta loo balan qaaday ee la siinayo si xilka uga qaado laakiin si walba iyo qaab walba iyo kooxda isku day karta Cali Guudlaaw iyo shaab xageeysa Cali Guudlaaw xilka qaaday Soomaa Cali Guudlaaw xilka qaaday shabaab say lacag ugu bixisay marka aqligaas xog soo noqonaya waa kulli waxaan u maleyn waxyaabo badan oo socda oo qarsoon hadda taalafkeeda waxay hordhac u tahay xogo badan iyo warar badan oo la heli doono iyo maartay hagardaamo badan oo gudoomiyuhu laftiisu marar badan uu ku eedeeyay in dad mas'uuliyiin ay hagardaameen dadkii la waday ma garan karo madaxweynaha Hirshabelle iyo nimankan meesha soo mari karaan sababtoo ah waa nimankii dagaalka lagu jiray mana oran karno madaxweynaha Hirshabelle ayaa maartay arintaas ku lug leh ma oran karno laakiin xogtaas waa xog xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ku jira ay faafiyeen
mas-uuliyaddan dabcan iyaga qaada iyaga ayaana laga rabaa faahfaahinta dhabtaha ee ku aadan lacagtaasi nimankaasi ay maaragtay ballan qaadeen intii xilka laga qaaday ninkan ama ay ku bixinayaan laakiin waxaa xaqiiqa ah oo jirta in kooxda dowladda ka soo horjeeda maadaama ninkan uu laf dhuun gasho ku noqday in ay nooc kasta ama tallaabo kasta ama qorshe kasta ay degeen sidii ama loo dili lahaa ama ugu yaraan xilka loo qaadi lahaa meesha loo dhaafin lahaa maadaama iyaga uu wax allaala wixii ay doonayeen iyo qorshahoodii iyo wixii ay sanado wadeen iyo maamulkii ay dhisayeen meesha ka saaray oo weliba meelihii meel kastoo ay gala isdhahaanba oo ay ka dhuntaanba uu ka dabagelay oo uu ka ereeyey marka de ninkii noocaas ahaa yaa diidaya Soomaaliya way isku dhex jirtaaye in meel kale inta loo soo maro ha de dadkii iska baahan baa jira marka haddii nin baa la yiraahdo waxba lagu ballan qaadayaa ninkaas waxa weeye ama hal la dilo ama maarta xilka laga qaado kuwa badan oo de damir laawayaal ayaa laga yaabaa inay sameeyaan aad baa u mahadsantahay waa soo koobaynaa Cali Jeete Cusmaan goorma xilka laga qaaday علي ورد تاريخ الصوصة رأي ورقة ما أنت واسدي تون تاريخ لكن ورقة وحكوا تاريخ سنة لحية تونك ودر هذا أما حالي صوب هذا ورقة لكن حالي بيصوب هذا ما قال كذا مركا صوبته أنت لا صوت داعي جوح فربنا واجري إن لقى قاعد دون لا تركيا ولا تومي ما نحن باجرتو ولا تومي ما كان في وريسيد وقدم بي وبحي سيد وجسه هرجدي دولة فضلالك وجو إنا مارتي أيسن boqolkiiba boqol dhabka ahayn dagaalka oo ay hagardaameynayso khilaafka la xiyay isaga iyo maamulkiisa oo madaxda ugu sareeyay maamulka Hirshabelle ay ku jiraan marka la fiiriyo iyo hadaladii iyo khudbadii uu jeedinayay tuunkaasi waa jiray in mar'uun seefto ay salfan doonto Ali Guudaawe Ali Jeete Cusmaan ugu dambeyntii dabcan waa lagu dhawaaqay in maaragtay xilkii laga qaado way falcelinta ka timid gudoomiye Ali Jeete waxay noqotay marka shir jaraa'id buu qabtay saacada kadib markii warqadu faaftay muxuu sheegay علي جيت هرت النكاس وعلوت الماء كان هنتقرب علي نفوض معي نسهلنا معه نسفضنا كنت جينا معه نسفض وقت خلوص كرنا أو أنت حين لا يقعد عليه مصيد حد بجبدين دارا ما يدقيس نكان جبهة واقف وكذا نكان سببته حود ما هي نبقول كيو بقول تاجر هذا غير هيران هيست لكن نكان تاجر هذا غير هيران هذي سياسيين تاي هذي أي شعب تاي يهدي أي قويان تاي يهدي أي مارة تاي وضع دقمة تاي با هو هيستا ما كان ننسفه ماشي وقت هيكرا معها نندون يقبيه ديسي إن ركل غاتان أو ركل دوان لو أماننا معها marka waa hadlay al waa hadlay shir jiraa'id buu qabtay waana la sugay inta hadalkiisa ugu galin dad badan baa ka falceliyay markii warqadan ay soo baxday oo yiri Ali Guudaawe Xuseen wuxuu u salaxay Ali Jeete xilka madaxweynaha Hirshabelle marka halkaas waxa fursad ka soo baxday Ali Jeete waa ninka Ali kala gaadhay نورو واحد لي أصلا أنا كسر لابنه خطبتيسة أما وصل لابنه شجرة إدبو قبتي إلى 8 دقيقة وربعين ترى طبعا واتبين هذين لكن نحر كذلك أنا داوني يعني سوقت بينه على والدي دورت حلقة قايس تلوسمي حبك مجرور وحكوا علي أول شيء إن كل دولت كسور جدا يا مامور غير شباب ده أي إسكسي ولا دقالة ميان يا isaga ciidu hogaaminayo hay isaga reehiran ka wakiila in al-shabaab iyo Ali Guudaawe maamulkiisa isku soo Hirshabelle la yiraahdo isku soo dagaalamayaan marka Hirshabelle ma nihin anaga waraan ku soo dhis wuxuu ku dhawaaqay maamul la yiraahdo Hiiraan State oo ka madax banaan Hirshabelle waxa kaga daran waxa la yiraahdo ruux laga maqal karo Hirshabelle magaca ma jiro oo reebel weynaa ama reehirana qof allaala qofkii Hirshabelle magacaas laga maqlana in uu mamnuuc ka yahay gobolka Hiiraan mid soo gal karana ma jirto ku ka bixi jooga bixi karana ma jiro waxa kaga daran awoodii fi taqotan ka isticmaalay wuxuu yiri iyo dhul iyo waxirata wax soo gali kara اي واحد قبل كده ونك حريه عاد زرع منه مجرو تو صوت اقول انكم وعوي waxaan taqran wanan culus ninku wax ka bixi kara ma jiro taa waxa kaga sii daran wuxuu li diyaaradii isku dayda in ay keento wax aan raali ka ahayn wallahi halkaas aan ku doonayna ay socoto ma iman karto burburinaa waa soo rideynaa
wax uu reebtay inaba ha yaraatee ama hanjabaada ama awooda cali jeete cusmaan ma jiro waxa uu yiri bishan dhamaadkeeda John ilaa bisha socota bilowgeeda waxaa la dhisayaa oo la sameynayaa maamulkii Hiiraan State waxaana la isugu imanayaa shir weyn oo arintaas lagu dhameystirayo oo markaa maxkamad la isugu imanay de kulli reer Hiiraan iyo wixii kale la jira wada ma kaliye ay ma fahamtay ay marka nuurow cali waa hadlay ninkan waa nin saameyn leh oo sidaan hore u sheegnay nin la yarsan karo ama la fudaysan karo ma ahan waana ninkii de sidaan hore u sheegnay hormuudka u ahaa dagaalkii macawisleyda ee gobolka Hiiraan ka bilowday ee lagaga sifeynayay dawladuna ay u ayday marka hadii dawladda ninkan hanti qaran weeye ay ka faa'iideysan weyday oo hadda maanta waxa weeye isagiiba xilka laga qaadayo de ma garanayo meesha loo socdo marka wuxuu yiri waa Hiiraan State bana Hiiraan State mamnuuc waxa wax Hirshabeelle la yiraahdo wax ka bixi kara oo Hirshabeelle magac horta wax sheegi kara magac Hirshabeelle la yiraahdo oo Hiiraan jooga ma jiro wax masuulka isdabagada isagu jeedar malaynba ku wujeedo sababtoo ah dadka hadda leeyahay xilka qaadistan way ka midaysan yihiin marka laga reebo cali guudaawe waxa ka mid ahaa isdabagad nimankan heer Hiiraan gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo ninkan cali jeetana waa niman horta hadli og waa niman garami og waa niman geesiyaal ah rag la dhayalsan karo ma oo si fudud ama xil loo qaadi karo wada nimanka waxa weeye raggii ay rabeen ama xildhibaanadii ay rabeen soo saartay balad ka saartay way ee nabadii nolol ay u galweyd marka raggaas waliba hormuud u ahaa marka cali jeete cusmaan janankii miska xadirinaya isagoo meesha janaxod xagee horta joogay isagu inuu ku xayir raxaan badalka ugu dambeysay dawladii hore inta xageysay ay diyaaradii u diiday oo halka ay ku haysay maalin wuxuu ka soo muuqday muuqaalka ay waran yar YouTube leeyahay ay doowayaan isaga iska dhacsada saaro malay soo qoraasanayo ma la arkay wuxuu mooj inuu ku soo biiran waxba kuma sababtoo ah raggii Hiiraan State u ololeynayay ee ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayuu kamid ah asalka khilaafkana waxa gundhigu hanuro waxaan ogeyn maamulkan Hirshabeelle markii ugu horeysay la aasaasay reer Hiiraan ba madaxweyne u ahaa طبعا عاصمتنا waxay ahayd Jowhar Soomaaliya reer Hiiraan waxay lahaayeen madaxweynihi laakiin maalinkii caasimadii iyo madaxweynihii Jowhar la isugu daray halkaas horta waxa weeye kacdoonka iyo maartay qanacsanaan la'aanta maamulka oo ka soo bilowday tii wali waa tagnayd xuud baa hore ugu ololeeyay waa socodsiin waayay oo cali baan la yardhacsaneen markaas maanta laakiin cali hawsha waa socodsiin karaa waa mahadsan tahay waxa jira cali guudla oo cali jeeto xil ka qaaday cali jeetana Hiiraan buu Hirshabeelle ka gooyay siyaasiyiintii kale ee reer Hiiraan ee waaweyneed ee siyaasadda aad uga dhex muuqday sida wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre taliyihii hore nabad sugidda ahna hadda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Sambaloolsh iyo ragga kale ee miisaan kale madaxweynihii hore Hirshabeelle ama madaxweynayaashii hore Hirshabeelle labada ahaa waare iyo Cosoble ragga waaweyn ee magac leh ama kuwa aan sheeginba wax reer Hiiraan oo siyaasi oo magac leh oo weyn oo ka hadlay arrintan ma jira ilaa hadda ma hayno haddii intaan barnaamij ku jirno uusan soo dhicin ma hayno laakiin waa la sugayaa inay hadlaan rag badan oo siyaasiyiin oo miisaan iyo magacba ku leh gobolka Hiiraan oo gobolkan ka soo jeeda inay hadli doonaan waan aaminsanahay ama wal rajeynaya oo ka falcelin doonaan go'aanka cali jeete xilka loo qaaday iyo waliba jawaabtiisa waxaan waliba anigu aan filayaa in rag badan ay raaci doonaan sababtoo ah waxaan ogeyn in bilo ka hor magaalada Nairobi oo shirkada ay beesha cali jeete halkan ay ku lahaayeen oo aysan ay ku dhaay maartay kaga tashanayeen ayahooda isla markaana ay warmurtiyeedkada ay qayb ka ahayd inaysan ku qanacsanayn habka madaxweyne xasan sheekh maxamuud dawladdiisa iyo qaabka uu soo dhisay sababtoo ah ninka la yiraahdo Sambaloolsh oo kale de raggii ugu afka dheeraa ee farmaajo mucaarada iyo intii xilka laga qaaday kadib ayuu ahaa raggii waliba la filayay in liisa golaha wasiirada ay ka soo muuqan doonaan ayuu ka mid ahaa ama xil kale oo muhiim ah la siin doono waa isla siin waayay marka reer Hiiraan qanacsanaan waa ka sinaayeen waana ka muuqatay hadalka cali jeete uu leeyahayna reer Hiiraan buu waliba wuxuu yiri waa afeefta wuxuu yiri afka aan ku hadlayo af reer Hiiraan ma aha dareenkii reer Hiiraan ee shacabka reer Hiiraan ma ku hadlayo marka cali jeete dareenkooda ku hadlayo ama markii la yiraahdo cali guudlaawe maanta buu hormaray dagaal waru yaala iyo maartay culays ay u bilaabatay aad buu mahadsan yahay saaxiibka ilka casa ayuu ahaa intaas aan ku soo gabagabeynayaa wixii wara ee ka soo kordha xaaladda gobolka Hiiraan iyo go'aamadaasi kala duwan ee ka soo baxday madaxdaasi qaar xilka laga qaaday qaar ay diideen
dib ayaan kasoo gudbin doonaa haddii rabbi qadarintan markale kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu